السلام عليكم أصحابتي الغالية وجامع الدفاع إذن كل صار نقضي وإذن سده فيديو قروح بدن ميل قروح بدن سود هذا إن بدن بنكر مقنعين ما أنت واحد شوجا دياني بيتش وميل قروح بدن ودتكو أيوصل الحيستجان رنتينا ومتكم إذا ميلها أو قروح بدن أنا أنت هنولا أركي وميل الحيس ولو نصته أنا جاي حاسك يونمي and my beautiful wife waxaan maanta jeclaystay inaad la wadaago qodob yar oo ku saabsan deegaankan si waa meel aad u qurux badan sidaad ka arkayseen waa xeeb waxay leedahay dhir aad u qurux badan waa xeebtiyo aad jawigeedu u macaan yahay oo aan kuleyl lahayn qaboon ahayn waxay leedahay this is actually waxa weeye private beach weeyaan waa meel dadka kaliya xaggan u soo dalxiis tagay ay iman karaan aanay dadka kale iska soo gali karin waa meel degan aan cod ku qashqashaadaysa iyo cid inay wax ka iibiso sanka ka soo gelinaysa iyo dad kale oo iska yimi aanay jirin waxa kaliya loogu talagalay dadka doonaya waqtigooda inay ku raaxaystaan honeymoonka dadka maskaxda dejisanaya waxaan ku yiri meeshan hadal ma karayso activity kala duwan ayaa kugu diyaarsan oo waxa lagu geenayaa jasiirado kala duwan jasiirad wasiini la yiraahdo Robinson Island mid la yiraahdo sidoo kale subax hore in the morning hadda meesha timaadid dhalinyarada meesha joogto way wada jimicsanayaan waa wada dad muruqyada dhistay subaxii oo dhan halkaas iska goynayaan dadka kale ee cadaanka way ordayaan eedoodii bay la ordayaan waa meel aan hadal iyo hugun iyo wax kale toona karayn run ahaantii aad baan ugu raaxaysanay waa idin tusi doonaa meeshaan deganahay oo meeshan iga dambaysa oo private resort aad u qurux badan waxaan uga jeedaa waxaan oo dhan anigu travel blogger meehi laakiin marka maanta meeshan imi waxay u soo dhacday bal asxaabtaadii horta la wadaag sidoo kale asxaabtaadii hal qodob oo muhiim ah u sheeg oo ah sida aan ogahay inaad tihiin dad hard working ah oo shaqaysta oo dadaal badan noloshooda geliya iyo familygooda sidaas la mid ah inay u fiican tahay mararka qaar inaad waqti naftaada la qaadatid iyo cid aad jeceshahay xaaskaaga carruurtaada oo aad tagtid meelasha aad awoodo berbera tag muqdisho beach tag eel tag macnaha xeebaheena waa ka qurux badan meeshan marka la eegayo laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad waqtigaaga oo dhan aanad wada gelin shaqada qudheeda waxay qurux badnaataa oo creativity gu yimaadaa markaad ka yara baxdid u soo nafistid maskaxda soo dejid xaafadda waqti la soo qaadatid kadib soo noqotid oo marka ideyooyinka iyo aad helaysid energy dheeraada marka waxaan doonayaa inaan ku booriyo qof kastoo dhegeysanaya inuu waqtigiisa shaqada iyo waqtiga liisharka raaxada ala kala saaro sanadkii hal mar loogu talagalo inaad miyigiini tagtid xitaa at least oo aad caanihii geela soo dhantid ardaagii geela soo seexatid muhiimaddu waxay tahay waqti inaad qaadatid naftaada iyo familygaaga la qaadatid iyo dadkaad jeceshahay sidoo kalena si weekly ah inaad waqti ula qaadatid dadkaaga iyo asxaabtaada iyo waxaasoo dhan saaxiibayaal iminkana waxaan idin tusi doonaa fiilada aan deganahay magaceedu waxa la yiraahdaa Serenity Beach Villa Anchor Bar and Restaurant waa meel aad u shidan oo degan oo waxaan ku yiri waxa degan kaliya saddex kabal oo kale labadayada iyo afar kale ku soo dhawaada waxa weeyaan meesha beachka marka la doonayo in la daawado lagu raaxaysto taandhooyinkaas lagu soo saaraya halkan towels baa lagu soo dhigaya habeenkii dad doonayso ku baashaaleysa xagan waa meeshii deegaanka ee guryuhu ka dhisnaayeen kondooyin weeyaan guri walba meel buu leeyahay private and this is our condo waa halkaas waa mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan ee meesha view-geyguna waa halkaas our view is the beach. It's so beautiful. Subaxi markaad kacdid. And this is the restaurant. Ama waxa loo yaqaanaa Anchor Bar. The Anchor Bar. Marka subax hore waa la hagaajinayaa. Hi, good morning. Assalamu alaikum. Fiican tahay? Good. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now.
imikana waxaan joognaa swimming pool sidekii aan waqti u qaadanayna halkan waa viewgana waa badii halkan waxaan joogaa swimming poolkii dad baa ku jira dhinac jiifa marka privacy-gooda dadka dartood ma duubeyno mar kale iyadoo maran baan duubi doonaa halkan waxaan ugu keenay ice cream macaankiisan ka yaabo waxaan moodaa in caanageel laga sameeyey wow asxaabta qaaliga inta waxaan kusoo gabagabeynaynaa hilibkeena halka ku duubaynay waan idinku tusaynay meeshan aan joogno iyo dhiirigelinta isugu jiray ballanteenu waa in si adag loo shaqaysto la dadaalo kadibna la raaxaysto waxay yidhaahdaan work hard play hard shaqayso dhidid waqtina qaado oo raaxayso aad baad mahadsantihiin